Waxaa laga yaabaa inaad maqashay magaca Jabuuti, balse weligaa ma ka fikirtay muhiimadda uu leeyahay dalka ugu yar Geeska Afrika, ahna kan ugu istiraatiijiyadsan. Wuxuu hoy u yahay quwadaha adduunka sida Mareykanka, Shiinaha, Faransiiska iyo Jabbaan. Dhammaantood saldhigyo ciidan ayay ku leeyihiin dalkan. Laakiin su'aashu waa maxaa ka dhigaya Jabuuti dal ay quwadaha caalamku degaan? Maanta waxaan kuu soo bandhigayaa xaqiiqooyin ku saabsan Jabuuti oo ay tahay in qof kasta oo Soomaaliyeed uu ogaado. Jabuuti waxay dhacdaa Geeska Afrika gaar ahaan meel aad muhiim u ah juqraafi ahaan. Wuxuu deris kala yahay dhanka koonfureed Soomaaliya, halka dhanka galbeed uu deris kala yahay Itoobiya, Eritrea dhanka waqooyi. Wuxuu leeyahay xeeb dheer oo ku teedsan Badda Cas, balse waxa ugu muhiimsani waa inuu u dhow yahay ama uu dhaco Baab al-Mandab oo ah marin istiraatiiji ah oo kala xira Badda Cas iyo Badweynta Hindiya. Waa marin biyood muhiim u ah ganacsiga u kala goosha Aasiya, Yurub iyo Afrika. Wax ka badan 10% badeecooyinka caalamku waxa ay maraan marin-biyoodkaas. Taasi waxay Jabuuti ka dhigaysaa meel istiraatiiji ah. Caasimadda dalkan waa isla magaalada Djibouti, oo ah magaalada ugu weyn uguna dadka badan oo ay ku nool yihiin qiyaastii 70% dadka dalkan. Magaalooyinka kale ee la xusi karo ee dalkan waxaa ka mid ah Cali Sabiix iyo Carta. Carta waxay ahayd magaaladii lagu soo doortay laguna dhisay dowladdii madaxweynihii hore ee Soomaaliya, mudane madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan. Taariikh ahaan, Jabuuti waxay ahayd deegaan ay ku noolaayeen dad Soomaaliyeed iyo kuwo Canfar ah, halkaasi oo dadka ugu badan ama majority-gu ay ahaayeen Soomaali. Waxaana dhulkan ka soo taliyay dowladihii Islaamiga ahaa ee ka curtay Geeska Afrika, sida Saldanadii Ifaad. Kadibna waxaa ka sii taliyay dowladdii Cadal ee uu hogaaminayay Imaam Axmed Gurey. Markii uu yimid gumaysiga Yurub, gaar ahaan Faransiisku sanadkii 1884, ayaa wuxuu heshiis la galay hogaamiyayaashii qabiil ee ka talin jiray deegaanada Jabuuti, isaga oo u sheegay inuu difaacayo iyagana ay siiyaan saldhigyo ciidan iyo joogitaan badeed. Wuxuuna ka dhigay waxa loo yaqaano protectorate, oo ahaa dal u eg inuu madax bannaan yahay, laakiin aan madax bannaanayn xaqiiqdii. Sanadkii 1896, 10 sano kadib heshiisyadaas, ayaa wuxuu u bixiyay Jabuuti magaca French Somaliland, iyadoo noqotay dal uu si rasmi ah u gumaysto kana baxday waxa ay ugu yeerayeen protectorate. Jabuuti waxay noqotay xarun istiraatiiji ah oo uu Faransiisku ka ilaashado danihiisa ganacsi ee maraya marin-biyoodka Baab al-Mandab. Sanadkii 1958 waxaa la qabtay afti dadweyne, halkaasi oo dadkii intooda badani door bideen inay xornimo qaataan, lana midoobaan Soomaaliya. Waxaana horkacayay dhaqdhaqaaqyadaas xornimo doonka ah Maxamuud Xarbi, oo ahaa halgamaa aad ugu ololeynayay in lala midoobo Soomaaliyada xornimada isku diyaarinaysay xilligaas. Balse Faransiiska ayaa musuqmaasuqay natiijada, isagoo sidoo kale isku diray qowmiyadaha Canfarta iyo Soomaalida si ay u sii hoos joogaan xukunkiisa, una sawiray in Canfarta ay la kulmi doonto haybsooc haddii ay ku biiraan dalka Soomaaliya oo laga tira badnaan doono. Laakiin 20 sano kadib, 27 Juun 1977, Jabuuti waxay ugu dambeyn heshay madax bannaani. Madaxweynihii ugu horreeyay ee dalkaasi wuxuu ahaa Xasan Guuleed Abtidoon. Markii dambese talada waxaa la wareegay Ismaaciil Cumar Geelle sanadkii 1999, wuxuuna xukunka joogaa ilaa iyo maanta. Dhaqanka iyo bulshada Jabuuti. Tirada guud ee bulshada dalkan waxaa lagu qiyaasaa 1.2 milyan oo qof. Jabuuti waa dal ku dhisan isku dhafka laba qowmiyadood oo waaweyn, Soomaali iyo Canfar. Qiyaastii 60% dadka reer Jabuuti waa Soomaali, ku dhowaad 35% waa Canfar, oo ah qowmiyadda labaad ee ugu badan dalkaas. Waxay kaloo degtaa qowmiyaddan Canfarta dalka Itoobiya, iyadoo oo ku leh ismaamul goboleed gudaha Itoobiya. Inkasta oo labada qowmiyadood ay leeyihiin dhaqamo u gaara mid kastaba, haddana waxaa u dhaxeeya isdhexgal iyo wada noolaansho taariikhi ah. Afafka rasmiga ah ee dalka waa Faransiis iyo Carabi. Afka Faransiiska oo ah afka koowaad ee dalka ayaa waxaa isticmaalo dowladda iyo nidaamyada kale ee dalka. Afkan ayaa laga dhaxlay gumaysaha Faransiiska. Si kastaba,
af Soomaaliga iyo afka Canfarta waa afafka ugu badan ee ay dadka caadiga ahi ku hadlaan. Dadka dalkan diintoodu waa Islaam Sunni ah. 94% dadka reer Jabuuti waa Muslimiin. Waxay aad ugu xiran yihiin dhaqanka Islaamka. Jabuuti sidoo kale waxay leedahay bulsho u badan dhalinyaro. In ka badan 60% dadka dalkan waxay ka yar yihiin da'da 30 sano. Inkasta oo dhaqanka reer Jabuuti uu aad u xasilan yahay, haddana waxaa jira tartan u dhexeeya afafka iyo dhaqamada qowmiyadaha, gaar ahaan marka la eego siyaasadda iyo adeegyada dawliga ah. Nidaamka siyaasadeed ee dalkan Jabuuti waxaa ka jira nidaam madaxweyne oo xooggan. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu talada hayay muddo dheer. Xisbigiisa RPP Rassemblement Populaire pour le Progrès, oo macnihiisu yahay xisbiga shacabka ee horumarka, ayaa muddo dheer talada dalkan hayay, iyadoo ay hogaaminayeen madaxweynayaashii kala dambeeyay ee dalkaas. halka mucaaradka dalkan uu yahay mid aan saameyn weyn lahayn. Doorashooyin ayaa dalkaansa laga qabtaa. Dowladda Jabuuti waxay aad ugu tiirsan tahay xiriirka dibadda iyo taageerada ay ka hesho quwadaha caalamka. Dhaqaalaha dalkan Jabuuti ma laha saliid, macdan ama beero waaweyn, balse waxay dhacdaa goob muhiim ah oo ka dhigaysa mid dhaqaale hesha, sida inay leedahay dekedaha caalamiga ah, gaar ahaan dekedaha Doralah iyo tan Jabuuti, saldhigyo ciidan oo shisheeye, halkaasi oo ay ka hesho dhaqaale iyo marin ay soo maraan badeecooyinka Itoobiya oo ah dal xiran oo aan lahayn bad. 95% badeecooyinkeedu waxay soo maraan dekedaha Jabuuti, gaar ahaan tan caasimadda. Dekeda Jabuuti waa isha ugu weyn ee dhaqaalaha dalkaas. Waddanka wuxuu sidoo kale martigeliyaa maalgashi caalami ah. Shiinaha ayaa ka dhisay wadooyin, deked iyo tareen isku xira Addis Ababa iyo Jabuuti. Waxaa kaloo jira xarumo ay leeyihiin bangiyo caalami ah iyo shirkado ganacsi. Saldhigyada ciidan ee shisheeye ee dalkan Jabuuti waa dalka kaliya ee Afrika ee leh saldhigyo badan oo ciidan shisheeye, oo ay ka mid yihiin saldhigga Mareykanka ee Camp Lemonor, oo ah saldhig weyn oo uu Mareykanku kala socdo dhaqdhaqaaqiisa gobolka ee ciidan iyo midka ganacsiba. Saldhigga Shiinaha oo ah saldhiggii ugu horreeyay ee ciidan badeed ee Shiinuhu ka dhisto dibadda dalkiisa. Saldhigga Faransiiska ayaa ku leh dalkan saldhigyo dhowr ah tan iyo waqtigii uu xoogga gumaysi ku qabsaday. Saldhigga Jabbaan oo ah saldhig military oo dowladda dalkaasi sheegatay in ay u isticmaasho waxa ay ugu yeerto la dagaalanka burcadbadeedda. Saldhigyadani waxay Jabuuti siiyaan dakhli badan, ammaanad diblomaasiyadeed iyo ilaalin. Laakiin dad badani waxay su'aal ka keeneen, miyay yihiin kuwo faa'iido u leh mise waa faragelin? Caqabadaha iyo fursadaha uu wajahayo dalkan. Inkasta oo Jabuuti ay leedahay dhaqaale koraya, haddana caqabado badan ayaa hor yaalla oo ay ugu horeeyaan shaqo la'aanta dhalinyaro badan, sare u kaca qiimaha korontada iyo nolosha, deymo badan oo laga qaatay Shiinaha iyo bangiyada caalamka. Balse sidoo kale dalkani waxaa ka jira fursado aad u ballaaran, sida ballaarinta dekedaheeda iyo samaynta goobo lagu dalxiiso, ka faa'iidaysiga marinka ganacsi, iyo sidoo kale xasilooni siyaasadeed oo ah waxa dalalka dariskeeda ah sida Soomaaliya, Itoobiya iyo Suudaan aan laga haysan. Waana fursad qaali ah oo ay dheer tahay dalalkan kale. Jabuuti waa tusaale muujinaya sida dal yar uu u noqon karo mid leh saameyn ballaaran, iyada oo aan lahayn kheyraad dabiici ah, haddana waxay ku guuleysatay inay noqoto xarun caalami ah. Qof kasta oo Soomaaliyeed waa inuu barto taariikhda iyo muhiimadda Jabuuti, sababtoo ah waa dal Soomaaliyeed iyo walaal Soomaaliyeed, lagana yaabo inay ku rumowdo aragtida Soomaali weyn. Cid aadan garanayn lalama midoobi kara